الله وبركاته ugu horeyn murashaxa madaxweynaha gudoomiyaha xisbiga kulmiye madaxweynaha mustaqbalka dhow mudane mujaahid Muuse Biixi Cabdi gudoomiye ku-xigeenka koobaad gudoomiye ku-xigeenka labaad afhayeenka xogayaha guud gudoomiyaha golaha dhexe gudoomiyaha gobolka Maroodijeex xisbiga kulmiye dhammaan hoggaanka sare golaha wasiirada agaasimayaasha guud taageerayaasha guud ee dalada horseed hoggaanka sare ee dalada horseed iyo dhammaan barbaarta gaashaaman ee dalada horseed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyn ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad leh runtii maanta anigu aad baan ugu faraxsanahay madashan aadka u bilan oo runtii muujinaysa maanta in miisaankii siyaasadda Soomaaliland uu dhinac u ciiray oo maanta muujinaysa murashaxa keliyata ee mustaqbalka madaxweynaha dhow inuu mudane mujaahid Muuse Biixi Cabdi runtii anigu aan hadalka ku dheeraynaynin dad badan oo mudanina ay madasha fadhiyaan ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa inaan si kooban idinku sharaxo dalada horseed runtii dalada aqoonyahanka horseed waxa ku bahoobay in ka badan aad maasantay runtii dalada horseed waxa ku bahoobay aqoonyahano saddexda heer ee cilmiga isugu jira degree master's degree iyo PhD waxay daladu ka koobantahay 650 xubnood waxay leedahay 4 waaxood oo qurbaha ah waxa laga shaqeeyaa garabka dalada horseed ee Germany garabka dalada horseed ee Sweden garabka dalada horseed ee Ingiriiska iyo garabka dalada horseed ee Canada oo iyaguna hadda online inoogu jira waa intaas runtii raaca daladu waxay ka koobantahay 650 xubnood golaha guud ee dalada hogaamiya waa 40 xubnood waxaanu leenahay 13 xubnood oo gudida fulinta ah xagga xisbiyada markay noqotona waxaan u shaqeynaa sida xisbiyada qaranka runtii daladu waxaanu muddo badan wada hadal kula soo jirnay saddexda xisbi qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ku bilownay xisbiga wadani waxaanu ku bilownay xisbiga wicid waxaanu imaka ugu dambeyntii isagana ku bilownay xisbiga kulmiye waxaan jecelahay inaan si gaar ah ugu mahad celiyo cidii mas'uulka ka ahayd inaanu runtii maanta halkan nimaadno xisbiga kulmiyana marka laga yimaado hoggaanka sare iyo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye oo isku duuban oo si kal furan noo soo dhaweeyay waxaan jecelahay si gaar ah ugu sii mahad celiyo waliba cidii badiga u ahayd oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Maroodijeex iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa oo aan leeyahay waa ku guuleysatay waxa runtii aanu sameynay cilmi baadhis waxaanu sameynay questionnaire saddexda mas'uul ee ugu sareeya saddexda xisbi qaranba waxaanu weydiinaynay su'aalo isku mid ah runtii markaanu su'aalaha badan weydiinay markaanu taageerayaasheedii darisnay markaanu aqoonteedii eegnay markaanu in badan eegnay baahida Soomaaliland ee jirta anagu waxaan jeclaan lahaa inaan in yar idin dul maro maxaanu xisbiga kulmiye ku dooranaynay ama xisbiga aanu galaynay maxaanu ku rabnay runtii sida la idin sheegay dalada aqoonyahanada ee horseed waa dalada ay ku mahoobeen dhalinyaro aqoonyahana oo aanu qabiil isu keenin laakiin maadaama aanu rabno inaan cudud weyn soo kordhino waxaanu ka soo bilownay Muuse Biixi Cabdi inta kalena waanu gaarsiinaynaa insha Allah runtii anaga vision-kaygu waxa weeye mudane gudoomiye mudane mujaahid aanu xisbiga ku dooranaynaa inaynu helo dawlad wanaagsan inaynu dawlad wanaagsan helo waxaynu u baahannahay inaynu helo dawlad dimuqraadiya dawlad transparent dawlad accountable dawlad shacabkeedu ay la xisaabtamaan waxaanu doonaynaa inaynu helo dawlad saraynta sharcigu ay tahay waxa kaliyaata ee bulshada hagta waxaanu doonaynaa inaynu helo dawlad cadaalad ah oo qof kasta muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu maanta xisbiga kulmiye idinka sidnaa inuu mudane mujaahid Muuse Biixi Cabdi noo ballan qaaday inuu cadaalada iyo sharciga ilaalin doono waxaanu runtii ku dooranaynaa Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga kulmiyeba hiil qaran aanu ku siinaynaa in xiriirada caalamiga ah iyo itraaf Jamhuuriyadda Soomaaliland si ay u hesho runtii in la kordhiyo waxaan jecelahay anigoo mas'uulkii ugu sareeyay dalada horseeda waxaad runtii aan doonayaa inaan shaashadaha kamaradaha dhammaantii ku jeediyo dhammaan taageerayaasha iyo barbaarta gaashaaman ee halkan joogta waxaa dalada horseed ku jira 70 dhakhtar waxa ku jira 35 injineer waxa ku jira 25 inan oo master's degree ku sita diplomacy and international relations waxa ku jira boqolkiiba 70 waxbarashada gobolka Maroodijeex ragga haga oo ah jilayaasha waxbarashada Soomaaliland soo saamaha
soo kulmiye manihin soo muuse bixi manihin soo saamanihin ugu dambayn waxaan jecelahay inaan fariin u diro dhammaan taageerayaasha dalladda horseed meel kastoo ay joogaan dhammaan xafiisyada iyo xarumaha dalladda horseed laga bilaabo caawa waxaan ku dhawaaqayaa in cududiinna iyo taageeradiinna iyo hiilkiinna qaran ee xisbiga kulmiye ina muujisaan wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wuu mahadsan yahay guddoomiye cabdiraxmaan anigu muuse bixi abtiyaashii waxaan ku jecelahay waa wada aftahan aad baynu ugu mahadnaqaynaa